Assalaamu calaykum. Tani waa qiso ka dhacday wadamada Khaliijka Carabta, waxayna u dhacday sida tan. Gabadhu waxay ahayd gabadh iska xanuunsata. Dhakhtar walba ay tagtaana waxa uu garan waayay xanuunkeeda. Ugu dambeyntii xanuunkii laga helay waxa uu noqday kaliya xanuun. Dhakhtarkii ka helay ayaa waxay ku noqotaba waxa uu ku yidhi ugu dambeyntii keliyuhu way ku fadhiisteen. Gabadhii aad ayay u yaabtay, dhinacay u qaadan way garan weyday. Ugu dambeyntii waxa ay tidhi, yaa Ilaahay dartii keliya igu tabarucaya oo aan abaal u galaa, abaalkaasi oo ah $20,000. Kadib dadkii ayuu warkii gaadhay, waxaana ka mid ahayd gabadh faqiirada. Gabadhii waxay is tidhi, jaanis ayaa ku soo maray, ka faa'iidee. Haddii ay keli kaa baxdana keliyaata oo kelida labaad inaad ku shaqayn karta, lacagtana waxoogaa faqri ay kaga bax. Kadib waxay tagtay gabadhii dhakhtarkii ayaa waxa uu isku eegay in labada keliyood ay labada qof isqaadanayaan. Kadib waxaa la ogaaday inay 100% isqaadan karaan. Kadib waxaa la isballansaday xilligii qaliinkii la geli lahaa ee keliyaha la isku saari lahaa. Haddaba sida caadada ah, waxaa operation-ka ama qaliinka ku horeeya qofka kelida laga saarayo, halka uu dambeeyo qofka loo saarayo. Haddaba waxaa horeysay gabadhii faqiirada ahayd. Subaxdii ayay soo kala haday. Qaliinka waxaa ku horeeya qofka saaraya kelida, waxaana hortimiday gabadhii faqiirada ahayd si ay kelida ugu saarto. In yar kadib waxaa soo gashay gabadhii kelida loo saarayay xanuunsanaysay, waxayna isha saartay gabadhii kelida u saaraysay oo aad u ooyeysa. Aad ayayna ula yaabtay, waxayna weydiisay gabadhii kelida u saaraysay in la soo qasbayo in kale. Kadib gabadhii saboolka ahayd waxay ugu jawaabtay, cidina imay qasbin, cidanta iyo duruufta ayaa qasbay. Kadib haddana halkii ay ooyintii kasii bilowday. Gabadhii xanuunsanaysay ayaa intay aad uga naxday ayaa waxay ku tiri, $20,000 qaado, kelina haysiinin ee iska qaado, Ilaahay dartii ayaan kuu siiyey. Haddaba markay halkaa marisay sheekadu ayaa gabadhii imikuun ilmeynaysay farxad ay iskala garan weyday. Haddana sidiisi leeg ayay farxad la ilmaysay. Kadib iyadoo lacagtii haysata, kelideediina ay u soo nabad gashay, ayay iska tagtay gabadhii. Sidoo kale gabadhii xanuunsanaysayna gurigeedii ay iska tagtay. Kadib dhowr cisho markii ay ka soo wareegeen ayaa waxay ku noqotay dhakhtarkii ay la xidhiidhi jirtay. Haddaba gabadhani waa gabadh la wada yaqaano oo ay keliyuhu fadhiisteen. Kadib markii ay dhakhtarkii u tagtay ayaa la baadhay fiilasheedii, waxaana la helay inaanay midh qabin oo ay caafimaad qabto. Haddaba daawade, halkan waxaan ka dhadhansan karnaa inuu Ilaahay caafimaadka iyo xanuunkaba uu gacanta ku hayo. Sidoo kale waxaan ka faa'iidaynaa qisadan in sadaqadu ay tahay dawo, sidii uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam, daawuu mardaakum bisadaqa. haddaba daawade, haddii ay tahay markii kuugu horeysay, fadlan channelka subscribe saar. Sidoo kale muuqaalka haddii ku cajabiyo, video wari like saar. Assalaamu calaykum.